waxaan wadadan kula jiraa saraakiil uu horboodayo taliyaha qeybta guud ee gobalka banaadir gaashaanle sare Farxaan Maxamuud Aadan oo ujeedo howleedkiisu daaranaa dhiirigelinta qeybta bari oo iyana isku kaashaday dhismaha xaruntooda iyo nabadgelyada guud ahaan gaar ahaan xaruntan oo cirif ahaan xigta xadka gobolka banaadir uu kala wadaaga shabeellada dhexe. taliyaha qeybtan bari gaashaanle dhexe Mahad Cabdi Cumar ayaa ugu horreyn ku soo dhaweeyay taliyaha xaruntan oo waaye gacanta booliiska ka maqnayd. waxa uu kaga sheekeeyay taliyaha qeybta isxilqaankii ay muddo wadeen ee ugu dambeyn ku soo dhamaado guul la taaban karo. taliyaha booliiska gobolka banaadir ayaa intaasi kadib shir gaar ah la yeeshay talisyada degmooyinka ee hoostaga qeybtan bari. waxa uu faray in dadaal dheeri ah la yimaadaan hubiyaana dhaqdhaqaaqa guud ahaan magaalada soo galayo. intaas kadib ayaan u jihaysanay laamiga dheer ee isku xiri doona Muqdisho iyo Shabeellada Dhexe. mashruucan ayaa isna si xawli ah ku socdo. taliyaha qeybta bari ayaa ugu dambeyn nagu soo wareejiyay dhulkan cagaaran ee xadka la leh gobolka banaadir oo ay fariisimo amni ku leeyihiin ciidamada booliiska gobolka banaadir. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.